halkani waa bartan YouTube ku leenahay Abdullah News waxaan maanta nagu soo boqday dugsiga boodhanka ay ballimataan warbaahinta qaranka oo aad iyo aad u mahadsan yihiin waxa kale maanta nagu soo boqday kormeerkii degmada oo ugu horeeyay Xuseen Maxamed Gaxlin Xuseen Dheere runtii haddii aan ka warramo mahadnaq kadib dugsiga boodhanka ay ballimataan aasaaskiisii iyo xilligii la aasaasay iyo marxaladii uu soo maray haddii aan idinka yar warramo marka ugu horeysa waxaan iftiiminayaa dugsigan boodhanka ay ballimataan in la aasaasay taariikhdu markay ahayd 2002 bishii 9 iyadoo lagu bilaabay hal qolkaas oo maaragtay iminka uu macallin degan yahay saddex ardayna maaragtay markaa lagu bilaabay iyo hal macallin ujeedadu waxay ahayd loo asaasiyay maadaama oo ay dadkeenu ay yihiin dad reer guuraaya waxa dib ku noqotay runtii waxbarashadii sidaa darteed waxa laga maarmi waayay in loo sameeyo dugsi boodhana oo leh oo loo hoydo oo chiefkiile iyo cuntadiiba taas horta ujeedadu loo asaasay boodhanka ay tahay maadaama dadkeenu reer guuraayiin runtii waxa dhacday dadkeenu maadaama aanay waxbarashada aanay fahansaneen in runtii ay u qaataan in ardaydooda aan maaragtay meel lagu xareysanayo oo xilli brainba oo lacag lagu qaadanayo ka bacdi macallinkii 6 bilood ayuu waday 6 bilood waxa 15 arday gaareen runtii macallinkii uu niyad jabay xataa marka qaar wuxuu yiri maadaama aan dadkii aanay maaragtay waxbarashadii diyaar u ahayn waan iska tagayaa ma garanaysa marka runtii alxamdulillah dugsigii lagu bilaabay 3 arday runtii dadkeenu way soo fahmayaan muhiimadda ay waxbarashadu leedahay iyo qiimaha ay leedahay waxay markaa maanta aynu ognahay dugsigii xilligaas 3 arday lagu bilaabay maanta waxa dhigta 387 arday ayaa maanta dhigta arday ku dhow 400 runtii waxa ay aad iyo aad iyaduna u soo jiidasho leh dugsigan ballimataan inuu yahay dugsiga ay hablaha ugu faraha badan ay wax ka dhigtaan tirada hablaha wax ka dhigataa waa 180 waa 180 tiradooda halkay nabadna ay yihiin 207 arday waxa ka shaqeeya dugsiga macallimiin fara badan 13 macallin ka shaqeeya primary-ga 10 macallin ka shaqeeya secondary-ga iskuulku uu yeeshayo isagana wax ka shaqeeya 3 macallin oo kullu marxalad bay soo mareysay mar maaragtay ardaydu ay yaraayeen mar ay 5 arday ay ku dhiman jireen markii dambe ay bay gaareen xataa imika form 4 bay ka baxeen oo imika ay imtixaanka u fariisteen marka runtii waa dugsi ballaaran oo boodhana oo secondary-ga iyo primary-ga labaduba waa dugsi boodhana xagga wasaaradda macallimiinta waxa gunaysan 3 macallin oo kaliya 13 ka macallin waxa gunaysan 3 macallin ay wasaaraddu xasiisaa taada wasaaraddu waxaan ku baaqayaa in wasaaradda waxbarashada iyo saynisku ay halkaa macallimiinta ay noo gunayso oo maaragtay mushaar ay u qorto heerarka iskuulku ka kooban yahay waxa weeyaan waa 1 ilaa 8 iskuulku primary-ga ayaa 1 ilaa 8 secondary-guna waa 1 ilaa 4 waa form 4 xagga ardayda seexata boodhanka tiradoodu waa 65 arday baa seexata boodhanka halka 322 ay deegaanka yihiin deegaanka oo dadka waxbarashada markay fahmeen hadaa dadkii tuulaha iyo dadkii miyiga qaar baa 1 kilomitir iyo 2 kilomitir iskuulka uga yimaada ardayda qaar oo halkan waxbarashada soo doonta sanadkana imtixaanaadkii ugu dambeeyay waxaan maaragtay imika la soo dhijiyay runtii in ardayda ballimataan ay yihiin ardayda u sarreysay Soomaaliland ay ka mid noqdeen oo kaalmaha u sarreeya ka galeen ayaa maaragtay imika soo gaadhay aad baan ugu hambalyeynaya ardayda ballimataan haddii aan ka sheekeeyo runtii eydkii ugu horreeyay maaha waxa ka baxay ladad aad u fara badan baa ka baxay boodhankan ballimataan waxa ka baxay ilaa 5 eyd baa ka baxay ilaa 5 eyd baa ka baxay oo qaar ay ka mid yihiin kuwa secondary-ga maanta imika form 4 iyaguna ka qalin jabiyay dugsiga markaa 2002 waa la aasaasay laakiin berigii hore duruufo jiray awgeed oo macallimiintoo yaraa ama maaragtay iyo duruufo iska yaraa ardaydu waxay kaga bixi jireen class 5 kaga bixi jireen iskuulka ay ku dhiman jireen laakiin imika alxamdulillah macallimiin waa la helay yani deegaankii iyo wixii ay sabablay markaa imika
iskuulka aad iyo aad buu fiican yahay 1 ilaa 8 si fiican ayay uga baxaan ardaydu secondarygana sidoo kale dugsigan runtii waxaa gacanta ku haya oo caawiya oo maamula wasaaradda waxbarashada iyo sayniska qaranka ayaa maamula oo iyadu uga mas-uula Somaliland ama qaranka uga mas-uula waxbarashada waxa kale oo iyada maamula guddiga horumarinta deegaanka iyo jamciyadda alnahda Carat Society oo hormuud ka yahay Sheekh Khadar Xirsi oo runtii meeshan aad iyo aad u soo dadaalay oo u soo waxaan ku rafjabay oo in badan waxaan u soo seexday waxaan ku weeray cidlo u soo seexday runtii Sheekh Khadar aad iyo aad buu u soo dadaalay degmada Balmataan isagoo aan saacad ka qayb qaadin meel badan u galay macallimiinta mushaarkooda iska xil saaray taariikhda dugsiga runtii Sheekh Khadar aad iyo aad baan ugu duceynaynaa kaalinta uu ka qaatay dugsiga Balmataan aad iyo aad baad mahadsantihiin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.